السلام عليكم داوديال جلال الدين محمد رومي waxa uu noolaa 1207 ilaa 1236 shayna waayistiisa hawmurigoon isagoo oo suurad kale ayaad heli doontaa kelmadahani waxa kamid ahaayeen oraahay caanka ah ee Jalaaluddin Maxamed Rumi. Jalaaluddin waxa uu ku dhashay magaalada Balakh oo ku taala Afghanistan, hase yeeshee markay boqortooyadii Mongolianku dalbalaadhsiga wadeen ayay qoyskiisu u guureen dhanka Turkiga, gaar ahaan Anatolia. hase ahaatee deegaanka ayuu Rumi kula kulmay gabayadii Beershiyaanka ahaa ee Atri iyo Shamsuddin, waana marka uu go'aansaday inuu suufiga noqdo. sidoo kale waxa uu bilaabay inuu qoro kumanyaal bayd oo gabayo Carabi iyo Beershiyaanba leh. haddaba sanadka markii uu ahaa 1244 Rumi waxa uu noqday sheekh, waxaanu bilaabay inuu fadwoodo isla markaana diinta ku soo dhaxdaro fadwooyin xalaal ka dhigaya muusiga iyo ciyaaraha kala duwan sida qoobka ciyaarka. balse dhimashadiisii kadib waxay ardaydiisii iyo dadkii fikradiisa ku raacsanaa sii wadeen afkaarihii uu aaminsanaa, iyaga oo aasaasay dariiqo suufinimo oo ay ugu yeedheen Mawlaawi, kuwaasoo caado u leh inay ciyaarta muusiga iyo dikriga isku dhex wadaan, una fahansan in ay Rabbi xasanaad ama ajar kaga helayaan. intaas waxa dheer, suufinimadu waa qayb ka mid ah dariiqooyinka ugu cadcad ee diinta Islaamka, waxaana jirtay ilaa qarnigii 7 oo ahaa markii kitaabka Quraanku soo degay. hase ahaatee culimo badan oo ka mid ah kuwa Islaamka ugu aqoonta badani may aqbalin madhabtan ama dariiqa diimeedda suufinimada ku salaysan. laakiin Jalaaluddin Maxamed Rumi oo loo garan yahay Rumi ayaa dariiqadan soo shaac saaray ilaa qarnigii 13aad. si kastaba ahaatee dariiqadan suufinimadu waxay aaminsan tahay in qofku Ilaahay si toos ah u midoobi karo, isaga oo muujinaya jacayl iyo muxibbo u hayo Khaaliq Raxmaanka. sidoo kale Rumi waxa uu noqday macallin dadka kale sii gaarsiiya dariiqadan uu rumaysnaa, waxaanu xilligan uu dadka barayay u arkayay inay suufinimadu tahay mawjad isku xidhaysa Ilaahay iyo addoonka xiisaynaya la kulanka Ilaahay. si ka duwan sidaas, waxa uu si gaar ah sharaxaad dheer uga bixiyay muhiimadda ay qofka u leeyihiin dikriga iyo salaadu. intaas waxa dheer, dhanka falsafadda ayuu si qoto dheer u dhex jibaaxay, waxaanu taataabtay arrimaha koonka iyo nolosha, kuwaasoo uu ku sheegay inay noloshu tahay mid waaraysa, duniduna ay tahay meerto aan dhammaad lahayn. tusaale ahaan, qofku marka uu dhinto inuu sii jirayo isagoo aan qof ahayn laakiin wax kala noqday ayuu aaminsanaa filosoofku. si fudud haddii aynu tilmaanno, waa halka ay suufiyada Soomaalidu ay ka yidhaahdaan waalidiinteen ayaana soo booqday markay arkaan xayawaanada qaarkood, waxaana jeclaadaan suufiyadu inay xoolo u qalaan oo ay siyaartaan waalidiintood markay astaamahaas arkaan. mar kale, filosoofku wuxuu aad ugu celceliyey inaan lagu murugoonin dhimashada, sababtana waxa uu ku sheegay in qof kasta oo dhintaa uu dunida sii joogayo isaga oo sifo kala leh oo aan lahayn sifooyinkii markii hore lagu yaqaanay. tusaale ahaan, geed ayuu noqonayaa ama xayawaan kale. sidoo kale, fikradda uu ku doodayey filosoofku waxaa ka mid ahaa in koritaanka nafsiganka ah ee ay dadku sameeyaan uu xidhiir la leeyahay jacaylkii muxibbada Ilaahay ay u hayaan, balse sida uu sheegay, muxibbada iyo jacaylka Ilaahay la jeclaanayaa waa kuwo dareen iyo qiiro ku dhisan, balse aanu baahnayn sababayn iyo rogrogis. hase yeeshee waxa uu aaminsanaa in heesaha, muusiga iyo jaasku ay kordhiyaan qiirada iyo dareenka muxibbada leh aynu hayno eebbaweyne. dhaxalkii uu ka tegay Rumi waxaa cajiibkahi waa in dhammaan fikradihii Rumi ay gudbinayeen guubaabooyin ku salaysan suufinimo, taas oo saameyn ku yeelatay dhammaan dunida Islaamka ah. sidoo kale
waxay fikradiisu horseedeen in dadyo badan oo aan tiro ahaan la soo koobi karin gaar ahaan Turkidu ay ka soo digarogtaan diimaha Kiristaanka una soo digarogtaan Muslimnimo. hase yeeshee Yurubta kale wax saameyn oo la sheegi karo kuma lahayn faylasuf Ruumi. guntii iyo gabagabadii qaybo badan oo suugaantiisa iyo falsafadiisa ka mid ah ayaa bartamihii ilaa daabayaaqadii qarnigii 20aad caan ka noqday waddamada reer galbeedka.